madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo soo gaaray magaalada Casmara ayaa wada hadallo miradhalo waxa uu la yeeshay madaxweynaha Eritrea Mudane Isaias Afwerki iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Mudane Abiy Ahmed. kulanka saddex geesoodka wuxuu daba socdaa kulamo ay hogaamiyaasha hore u yeesheen waxaana gabagabadii maanta laga soo saaray warmurtiyeed wadajir ah. madaxda dalalka iyo dowladaha Eritrea, Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa ku kulmay maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 27 bisha Janaayo ee 2020 magaalada Casmara. saddexda hogaamiye waxa ay yeesheen wada hadallo toos ah oo qoto dheer oo ku aadan xaaladaha ka taagan dalalkooda, iskaashiga saddex geesoodka ah ee u dhaxeeya iyo arrimaha ka soo cusboonaaday gobolka Geeska Afrika. hogaamiyaashu waxay mar kale ku celiyeen sida ay uga go'an tahay heshiiska saddex geesoodka ah ee ay saxiixeen bishii Sebtembar ee sanadkii 2018 waxayna dib u eegeen waxyaabihii ka soo baxay dadaaladooda wadajirka ah ee ku aadan hirgelintooda. saddexda hogaamiye waxa ay meel mariyeen qorshe howleed wadajir ah oo loogu talagalay sanadka 2020 iyo wixii ka dambeeya kaasi oo xoogga lagu saarayo labada ujeeddo ee isku dhafan ee adkeynta nabadgelyada, xasiloonida iyo amniga iyo sidoo kale sare u qaadidda horumarka dhaqaale iyo bulsho. waxa ay sidoo kale ku heshiiyeen inay dardar geliyaan dadaaladooda wadajirka ah si kor loogu qaado iskaashi heer gobol ah oo wax ku ool ah. dhanka ammaanka saddexda hogaamiye waxay isla qaabeeyeen qorshe sal ballaaran oo lagula dagaalamayo lagagana takhalusayo guud ahaan caqabadaha ay wajahayaan oo ay ka mid yihiin argagixisada, hubka, tahriibinta dadka iyo maandooriyaha. dhanka horumarinta dhaqaale iyo bulsheed waxay isku waafaqeen inay mudnaanta siiyaan abaabulidda kheyraadka bini'aadan iyo kan dabiiciga ah ee faraha badan iyaga oo dhisaya, casriyeynaya, iskuna xiraya kaabayaasha dhaqaalaha iyo waaxyaha adeegyada iyo wax soo saarkaba. waxay sidoo kale muujiyeen sida ay uga mahadinayaan diyaarna ugu yihiin la shaqaynta saaxiibadooda iyo daneeyayaashooda iyadoo lagu salaynayo is-ixtiraamid iyo kala faa'iidaysi siman. saddexda hogaamiye waxay isku raaceen inay si dhow ula tashadaan walaalahooda iyo madaxda dowladaha kale si loo xaqiijiyo iyo didiilada dadkooda u qabaan helidda iskaashi dhex mara Geeska Afrika oo wax ku ool ah. warmurtiyeedkan waxaa laga soo saaray Casmara, Eritrea 27 Janaayo 2020.